dadka degmada aadan yabaalna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin soo dhoweyntii diiraneed ee nala soo dhoweeyey aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ugana mahad celinaynaa aniga iyo wafdigaygaba walaalahayo waa runtiinu inta aad sheegteen oo dhibaatada ah laakiin dalka Soomaaliya oo dhamay ka jirtaa intaas waxaad u malaysaa inaad u hadasheen Soomaaliya inaad u hadasheen aad u malaysaa maanta yani inta aad tilmaanteen gudoomiye degmada Maxaas waa jooga maanta Maxaas tagana dhibaatada jirtaa intaanay ka ahayn maalintii aan meelo kale oo deegaankan ka tirsan iyo tuulooyin waaweyn aan tagana baahida jirta intaanay biyo la'aan caafimaad la'aan waxbarasho la'aan maxaan ku iraahdaa wada la'aanta hadda laga hadlayo oo baabuurtii ama muugiyo baabuur kale ma imaan karo ilaa rover la leeyahay yani duruufahaasi dalka oo dhan maanta marka reer aadan yabaal mashaakilada aad sheegteen oo dhan waxa waaye Soomaaliya u hadashay waxa Soomaaliya ka jira waa xooliyoon ku tiirsanayna waa sida uu u sheegay muxuu dhakhtarkeena veterinariga ahay waa sidaas wixii abaar iyo muxuu ahay ka soo haray inay cudur haddana ay u sii la'aanayaan oo u dhibaataysan yihiin waa xaqiiqo meel kasta ka jirto taagan waa marka waxaan rabaa horta inaan idin sheego idin gaar ma ahane dhibaatada Soomaaliya oo dhan oo 30 sano dhibaatada aad aadan yabaal ka sheegteen oo dawlad la'aanta iyo khawaarijta iyo dhibaatada ah mar dagaal sokeey kul deegaanka dalka oo dhamma sida idin la ah degmooyinka walaalkay oo ka dhawaajiyay ee Garowe iyo meesha la yiraahdo Qoryooley waa laga yaabaa Garowe caasimada ay noqoto dawlad goboleed caasimadu noqoto waa dhisantay waa la isugu tagay maamul iyo waxa degay waana deganeed inta badan oo nabaday ahayd colaad kama jirin khawaarijna ma qabsan waa horumartay waa ku hanbalyeynina waana in Ilaahay u ziyaadina waa u barinaa laakiin Qoryooley oo dhulka aad ogtiin ku taal oo maxaan ku yiraahdaa dhul beereed oo webigiisaas u dhaxmaro oo maxaan ku yiraahdaa sidaas ahayd wax weyn aadan yabaal kama duwana runtii marka la sheego wax weyn aadan yabaal kama duwana horumar la'aanta inta aad sheeganaysaan Qoryooley iyo degmo kasto kale Soomaaliya ku taal waliba goboladan afartan dawlad goboleed oo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland degmooyin ku yaalo waa sidaas dhulka meesha ugu nabadneed ugu barwaaqaysneed ugu maxaan ku raadayna waa tahay hadii ay bar tahay iyo hadii ay beer tahay iyo hadii ay bad tahay meelan bad lahayn male waa tahay laakiin ara marka dhibaatadaasi dhibaato Soomaaliya la wadaagtaan waaye aadan yabaal u gaar ma aha aadan yabaal waxay qabtaa mashaakil Soomaaliya oo dhan ay la qabto marka aadan yabaal kaligeed jasiirad yar oo qurxoon inay noqoto suurtagal ma aha Soomaaliya intay qurxoonaanaysa ay ayadana la qurxoonaa doontaa muhiimadaha teedarana un barnaamijyada loo kala hormari doona laakiin horumarka iyo muxuu imaanaya waxa soo hartay intaas kadib walaalahay cadawgii meeqo u jira aadan yabaal 40 kilomitir 50 kilomitir badi 50 badi hadda cadawgii ma tagin waa joogaa cadawgii ma tagin waa joogaa 40 kilomitir maana meel Soomaaliya kamid intuu joogo waa joogaa waa geedkaas cali garoobka oo kale hadii kor laga gooyo oo fiixir haduu ku dabris meeshiisa ka soo cifay oo soo noqonayo waa annaga dawladda Soomaaliya qaybaheeda kala duwan dawladda dhexe dawlad goboleedka xoog iyo xoolo iyo aqal waxaan leenahay cadawga sidii loo bixi lahay bas ay nagala taagantaa iyo dadka naftooda dadku sidii aanay macluul ugu dhima lahayn hal la gaarsiyo wixii la heli karo hal la geeyo hay-ad cusub oo awal aan shaqay jirnaa hadda dawladdu sameeyso shaqayso waanaad aragteen inta waa idin kugu timid muxuu amuraha degdega ah masiibooyinka amuraha degdega ah ka shaqayso waxa waaye muhiimada koobaad waxa noo ah in markaan khawaarijta dalka laga sifeeyo muhiimada labaadna xitaa dadku inaanay macluul u dhiman wixii la heli karo badbaaday joogtaa sidii dadka lagu badbaadi karo in lagu badbaadi maalintii cadawga magaalada uu ka baxay saacado ama maalmo yar kadib madaxweynaha iyo tiimkiisa waa ceelkii bambadu kala baxeen wixii la keenay kuwaas hadda biyo la'aantu ay ka jirta iyo biyaha qaraar ka jira ilaahay idinkiisa waa la keenaa waana la qodaa biyana waa la helaa noloshu waa biyo la'aan nadaafad ma jirto nolol kale oo wanaagsan ma jirto xoolo ma dhaqmayaan marka waa laakiin maanta falaartii isha ku tiilay tii salka ku tiilay warbaltalsan ku taal iga gooy aan fariista ay taagan tahay saan u fariisan annaga cadawga in iska bixinaa raamaad cadawga reer aadan yabaal doora uga aadan doorkaasina doorka dadka Soomaaliyeed oo dhan uga aadan waa koow horta sida oo loo sheegay Sheikh Somo al-Khayr Allah si hadda uga hadlay waa horta ina dhaxdiin heshiistiin nabad tihiin colaadi aan idin la jirin colaadi markay timaado
nin xoog leh in laga xoog badan yahay maaha kan laga xoog badan yahay inta quusoo layla biriga waa laga xoog badiyee dhihi maaye inta baxo kaalmo doonana kaalmada ugu horeysa meeshuu ka doonanaan nimanka cadowga aan la dirirayno waay ayuu kaalmo ka doonana adiga marka haddaadan cadowgii ciidan u yeelaynin walaalkaaga deriska kula ah ka beerta kula wadaaga kan maxaan ku rahaa waddada kaala dhexayso kad hayb ahaan aad sheeganaysaan meel fog ciidaan kala jir ka leexo hadduu ku dulmina xataa walaal waa dulminaysaa xataa iska dulqaado iska kaydil duul kale iga kaa darani ninkii yiriyo kala waay maanta dhexdeena cadaawad ka timaadaay duul nooga daranaa jooga oo ay tahay inaan indhaha ku taagno aan fiirino dhexdeenna ma aha horta kaas waa dardaarmaynaa mar walba akhyaartiina meesha fadhido nabadda iyo midnimada in laga taliyo si cadowga loogu midoobo waxaa soo haray dowladda Soomaaliya dowladda Hirshabeelle caalamkii oo saaxiib badan la ahaa waa la isugu yimid meeshii cadowgaas in la waxeeyo laakiin hal xabo oo la isku raacay oo xaqiiqo ah waxaa jirta dadka deegaanka cadowga inay iska kiciyaan haddaanay rabin lagama kici karo Soomaaliya dowladdii Maxamed Siyaad Barre markay burburtay 2 sano sanad gudihiis caalamka oo dhan way guurayaan noo yimid dowlad aan idin dhisno dowlad dhista isku imaada heshiiya muxuu madax yeeshana dhahayo tuugada idinka qabanno kaalma idin soo gaarsiino maxaa cuni kartiin maxaa waxay kartiin dowlad waa dhisan weyna annaga Soomaali haddaana amnina waa keensan weyn maadaa idii kartiin waataan ogey dad qaraaba aan kala fogeyn inta qoryo la isku qaatay eber la iska dhigay balaayo dhan mugaasay timade mooryaan isbaara jitaal maxaan ku iraahdaa wadaad waashay maxaan ku iraahdaa mid diinta ka been sheegay maxaan ku iraahdaa mid magaciisaysan kulli qabqable hogaamiye kooxeed magacyo aanan garanayno af Soomaaliga nooga mid ahaan jirin dad la waa yimaadeen dadku haddaanay heshiis ahayn oo ayagu waxa ay karaan aanay horta qabsanin maxay ahayd maamaadii Soomaalida ahayd ciyaaya loo cila dhaanshaa ariyaa muslimahay ariyaa ay qofkii yiraahdo loo meeshan balaaya ka jirtay hadduu shib iska yiraahdo meeshiisa lagu jabo quudsado yaa u imaana war intaanaan qabsanay intaana awoodeena gaari weysa markii la waxa ugu horeeyo dadku ay qabsan karaan amniga kuuka ah ammaanka kuuka wiilka reer hebel iyo wiilka reer hebel wax ma lay karaan iyo wiilka adeer hebel iyo wiilka eed heblaayo dhashay oo la garanayo wax ma lay karaan isbaara magaalada cirifkeeda la dhigaa biri lama taaba karo juuq looma dhigi karo maxaan loo dhigi karin adeer hebel iyo eed hebel wiilkeedu waa lama hadli karaa la leeyahay adeer hebel iyo eed hebel آخرka ayaguna amaan heli maayaan dadkana waa amaan geli waayeen dhowris ma mudna nin isbaara jid dhigtay waa qaaticu dariiq wuxuu qabo diinta islaamka ka hadashay lagu noqon maayo sida muxuu xukunkiisu u yahay waa la garanayaa in lagu dhowro marka muxuu nin ilaahayba uu xukumay in lagu dhowro muxuu ahaay inuu aniga ugu hayb yahay inuu maxaan ku iraahdaa saas yahay ama muxuu ahaay oday hebelo nabadoonkii wiilkiisa waay ama muxuu odagii geesiga ah wiilkiisa waa la yiraa ama wiil geesiga waa shalow muxuu cadawga naga dhici jira la yiraa cadawka weyn ma jiro hadduu jidka isbaara dhigto cadawka weyn ma jiro waxaan rabnaa marka isbaara adika isaga filan ilma ilaaliso isbaara adika isaga filan dowladdu waxa diqdiq yaroo jida dalkan ku yaalo dhan meel kasta askari ma taaji karto laakiin meel kasta nin deegaanka iyo qoys deegaanka iyo gabar deegaanka ah taagana joogto isbaarada dalkoo dhan kama taalo waxaan rabaa walaalan runta isu sheegin walaal ma aha dalkoo dhan isbaara kama jirto deegaanka aad degantihiin isbaara ka jirtaa Hirshabeelle isbaara ka jirtaa meelo badan oo dalka kamid ah isbaara kama jirto waa laga gudbay waa laga yimid maxaana looga gudbay dadka looga gudbay dawlad loogama gudbin dawlad kama kicin deegaanka inta hadii 10 kilomitir loo kacana isbaar haday taalo inta hadaa uga baxdan 5 kilomitir ay taalo xamar hadaad aadod sii socotana dhul islaameed aadan mareyno kuwa un aad sheeganaysa haybta meeshay doonaa kula ekaadaan aad sii dhaxmarayso oo 12 isbaarana aad sii marayso gabdhaha dharka looga furana oo odayaasha maxaan ku raadaay looga qaadanayo maxaa kista yarta
ورتوك دورد ملا درجة ملا قاطع الطريق دولد ملا اسكر دعية ضدك يا اسكرها قاطع الطريق يسباريست دولد ولا دقال سنتا وانا لا دقالي لكن ضدك لا انت اسلا لما دقال لما كرو خوارجتان ما انت دلك laga kiciyo dadka deegaanada degan gobol kasta hadaan uu istaaga laga kicilayn meelay ku harsan yihiin waa meelaha wali dadku u kici waay meelaha ay ku harsan yihiin waa meelaha wali dadkeedu u kici waay laakiin meeshii dadkiisu istaagay hal khawaarij oo jooga ma laha mana joogi karaan rajana kama qabaan xataa inay ku noqdaan عربا dadka reer aadan yabaal fariintaas inay qaadaan cid kasto ila hadli karaan oo ay dagaankooda ay ku tuumsan yihiin in ay khawaarij joogaan in u sheegaan raali ahaan shay ka walax tahay saan heeyela aniga maxuu ahaay waa leedilaahe maana ka la warrami karo waa la warrami karaa waa la buri waa la eriyi karaa rakhiis waaye waa fulayaal maatida iyo maxaystida iyo qarax iyo cunug maskaxda laga soo qaldo isqarxinahay ku joogaan dhiiranaan kuma joogaan iyo dadnimo diinna waa la sheegayba kuma joogaan culimadii aa sheegtay xay ku jooga waa fulay ninka fuliga waa kan maatida iyo islaamaha iyo odayada iyo ilmaha yar yarka ama maanka ka qaldo ama ha gowraco ama ha cabsi geliye kaas waa nin cabsi ku nool dadku inuu cabsi geliyo yiraa wariya ka wariya hadii la yiraahdo inta ku cararay waay nimanku diin ma haystaan oo dad ma haystaan oo deegaan ma laha xow inuu idi kor jooga oo soo dhukaaleysa waxaan rabaa dadka reer aadan yabaal ha toosaano eelka kala fariinta ha gaarsiiyaano deegaanka meel kastoo xasan sheekh istaagi ma karo cali guudlaawana istaagi ma karo askarta socota ee deegaankan ku dhimanaysa ku dhaawacmaysa deegaankan uma dhalan dhammaantood Soomaali waaye Soomaalinima inta keentay dawladda inta keentay in loo hiili waayo la garb istaagi waayo dawma maalin kastay dhimanayaan maalin kastay dhaawacmayaan hooyay dhashay ka dhimanayaan aabbo waayo caruur ka dhimanaya maxaan ku raadayay waa deegaankan deegaankiisii ma aha dadkan ku heeb ma aha hadduu doono naftiis wuxuu u keenay Soomaaliya iyo calankaas buluuga ah in kor loo qaado waa midkaan ku midaysanahay wada leenahay oo koox gaara iyo hayb gaar oo le aanay jirin wiilkaas marka in uu garab istaag iyo dhinaciisa uu ka arki waayo wiil deegaanka oo ordaayo xabad ridaayo ka dagaalamayo oo ka arki waayo u jeedi waayay waa nasiib darro waay waxaan rabnaa dadka loo sheego shabaab meelaha uu joogo dawladda uma joogo hadday tahay Hirshabeelle iyo hadday tahay dawladda federaalka uma joogo ha loo sheego cajiskiina adigu aad caajisteen ku jooga intii dadaashay ee waxaysay waa kuwa maalin weed waa aragteen daar nicmo wixii ka dhacay ciidamo dawladeed ma joogin daar nicmo markii soo weerarayeen wiilashii deegaanka joogay wax kasta haday subiyana waa dibay u celiyeen oo ku guulaysan waa inay soo galaan ay qabsadaan dadku markay go'aan gaaraan inay sharafta iyo karaamada iyo heybada iyo diinka iyo dadnimada ay leeyihiin inay difaacdaan lagama adkaa karo laana ilaahay garab taagan ilaahay la jiro lagama adkaa karo laakiin adoo xumo si cararaaya adoo hoos u fooraro oo meelaha ku gagabanayo haddaad nooshahay dulinimad la nooshahay iyo xumaan haddaad dhimatana macdiyus inta tahay wax macnaad leedahay mar taas waa dardaarankii waxa soo haray inta soo hartay dawladdiinu waa idin la jeceshahay laakiin ma hayso ma awoodo maanta laakiin waa wax recordka ku qoran oo maxaan ku iraahday aan jecelnahay maba ahaba in laga codsado mas'uuliyadda dadkan u qaadnaaba inay tacliin helaan inay caafimaad helaan inay biyo helaan inay amni helaan inay maxaan ku iraahday yeeshaan oo waxa soo dhan waxay ku imaan kartaa dawlad markii meesha kaana qaado gudoomiye degmaa joogo maamulkii inuu dhismo hay'adaha soo dhan ay yimaadaan meesha ay ka taliyaan waayo waxay ku suurtagelin maanta wali bilawaana waa imaanayaan laakiin nimankan cadowgaana iska dhameystirno meel oo ay ka jirto
kalsooni la'aan talow nimankii ma soo noqon doonaan ma waxayn waa ma tageen bismiya ma la waayey ma waxayn la leeyahay wax badan oo weyn lagama qaban karo waxaan isugu tegaynaa caqli iyo xoog iyo xoolo waxa aan leenahay meesha isugu tegaynaa dadku waa dadaaleen waa ka qayb reer aadan yabaal waa ka qayb qaateen muxuu ahaay xoreynta deegaanada ciidamadii yimid wixii yimid inaysan dadka inaad soo dhaweyseen xoolo badan aad muxuu ahaay xeryihiina ka soo bixiseen intaasoo dhan wax tar waaye wax weyn ay ku tartay dadkii deegaankaa soo dhaweeyey ciidankii marka la yidhaah ciidankana waa u moraal kuwo kale oo shabaabku weli ku habsadayna waa muxuu ahaay waa u aragti oo waa ku dhiirasho ay u noqonay iyo hoga tusaalayn ayay u noqonay dawladduna garabay u noqonay dawladdaadii aad garab istaagtay wixii dawladda keligeed laga sugi lahaa ayaad ku garab siisay inaad dawladda garab siisid marka dawladduna waa ku xoogaysanay waxaa laga rabaana waa soo degdegayn ciyow intii lala tacaali lahaa muddo dheer shabaab dadku haddaanay ku kici lahayn oo gobolka muxuu ahaayey dawladdan hirshabeelle oo hiiraan iyo shabeellada dhexe oo hiiraan looga kici lahayn oo tuulo kastoo hiiraan joogto looga soo bixi lahayn oo shabeellada dhexe sidoo kale aan muxuu ahaay loo soo kici lahayn inta badan looga soo bixi lahayn dadku haddaanay kici lahayn u istaagi lahayn dawladda keligeed waqti dheeray ku qaada lahayd inay intaan soo gaarto maanta meesha la joogo waxaa lagu soo gaaray garab istaagga dadkaa lagu soo gaaray marka waxaan rajaynayaa in aad sii xoojisaan oo aad maxaan ku idhahdaaye garab istaaggaasna aad xoojisaan nabadda dhexdiinana aad ka talisaan dawladduna ciidan booliis ah oo hadda waa la keenay dawladda guud ee dawladda soomaaliya ane taagteedu waa gaaban tahay dawladda hirshabeellena waa ka sii taag gaaban tahay degmooyinkii hadda la xoreeyeyna hadda waaba kuwa maxaan ku idhahdaaye garab istaaggii u baahan dhowr askarioo booliis hadda meesha waa la keenay waa la soo badinaa kuwa deegaanka ahaa la qorahaa booliis laga dhigaa oo degmadooda booliiska degmada aadan yabaal meel kale booliiska degmada aadan yabaal meel kale laga keeni maayo dadka reer aadan yabaalaa booliis noqona wixii dadka reer aadan yabaal laga dhex heli karo oo dawladnimoo dhan dadka reer aadan yabaalaa noqona macallin iskool haddii la hela reer aadan yabaalaa noqaa gabar umulsa haddii la hela reer aadan yabaalaa noqona wixii reer aadan yabaal laga waayena hirshabeelle inteeda kalea laga keenaa wixii hirshabeelle inteeda kale laga waayena soomaaliya waa laga keenaa dowladda federaalkaha loo diraa laakiin waxa mar walba waa la helaa reer aadan yabaal marka waxaan rabaa inay diyaargaroobaan oo ay u diyaargaroobaan sidii ay ula wareegi lahaayeen dawladnimadaas maanta intii horta oo xukunkii iyo qaabkiisi wixii inay soo noqdaan waa rabnaa laakiin dadka reer aadan yabaal inay haayaanaan rabnaa isku duwaha xanaanada xoolaha isku duwaha maxaan ku idhahdaa biyaha isku duwaha maxaan ku idhahdaa beeraha isku duwaha maxaan ku idhahdaa inay noqdaan reer aadan yabaal ganacsatadooda inay noqdaan beledkan waa laga kala cararay dadkii inay usoo noqdaanaan rabna reer aadan yabaal dad badan oo xoola haystaa yaa aadan yabaal ka soo jeeda dad badan oo aqoon lahaa aadan yabaal ka soo jeeda laakiin hal midoo looga cararay waa amni darro wax la'aan ma ah inay duduunsan yahay beledka ma aha beled kasta waa la camiraa waa la dhisaa dadaa dhisoo camiro toosiyo dadka reer aadan yabaalna intaa waa ku filan yihiin inta aniga aan aqaano maanta oo xoola haysato reer aadan yabaalahaan xisaab lahayn ammaan hadday noqoto aadan yabaal mid biyo la ordaayo mid koronto la ordaayo iyo mid caafimaad la ordaayo horta waa imaanaya intii jeebkoodu wax ku jiraan horta wax waa iibsanay inta kalena dawladdan ka mas-uul ah oo wax farii ah oo oon lacag la'aana inay u keento dawladdaa laga rabaa hadday tahay heer dawlad goboleed iyo hadday tahay heer dawlad federaalba inay u keento inta danyarta aana inta wax haysata bas inay noolaato ma aha intaasna waxay iibsan karta inay iibsato inta gacantoodu gaaban tahayna dawladdu inay u keento caafimaad iyo biyo ay cabbaan iyo maxaan ku idhahdaa iskuul ilmuhu ay aadaan la helo waay markii ugu horreysay waa maqasheen 3,000 oo macallina maalinood imtixaan laga qaaday 10,000 oo macallin in la gaarsiiyaan rabnaa muddo kooban kadibna 20 la gaarsiiyo 3,000 10,000 20,000 oo macallimiintaas degmooyinka cusub ee hadda la xoreynayo yaa loo qorayaa inay yimaadeen iskoolaadkeedii furaan ay macallimiin ka noqdaan meeqa boqol 500 mise 600 macallin 600 oo macallin ayaa hadda imtixaanka hirshabeelle 600 oo macallina ka gashay 600 oo macallin hirshabeelle weli waa ku yartahay ma waxba laakiin waa bilo
lix kala ku xigay kuna ku xigay ilaa degmo kasta iyo tuulo kasto konton goys ku nooshahay iskool laga helo marka akhyaarta mar kale waa idin mahad celina dalabaad iyo ballanqaadkii prime ministerka sida u dhaqan geli oo imaalahay ayaa anna ka soo shaqeynaa hadii alla yiraahdo aad iyo aad u maasantiin guul iyo khayr insha Allah waana idin soo noqon doonaa hadii alla yiraahdo guul adii rajayna assalamu alaykum